بسم الله. halkan waxaan ku duubaynaa cashir lixaad ciwaankiisuna yahay multiplying decimals, isku dhufashada decimaleska. in badanna waxaan ku arki doonaa tusaalaha, laakiin waxaan hadda yar ka hadlaynaa horudhaca ama fikradda. xirfaddan waa noo damaynaysa haddii ilaahay yiraahdo. maxaa loo baahan yahay in la fahmo marka laba decimal la isku dhufanayo? isku dhufashada horta hore waxay la tahay nidaam iyo habka la raacayo. habraacu waxa weeye waa sidii isku dhufashadii caadiga ahayd la isugu dhufanayay bay raacayaan. waxay decimalku uga doonaan doonaan. decimalku wuxuu leeyahay dhibic buu leeyahay. dhibicdaasaa u baahan marka meesha ay dhacayso in la fahmo. sideena loo fahmayaa inayay ku saabsan tahay qormadan yarta halka aan ku muujiyey. marka aad isku dhufanaysa lambarada decimalska laba nambar baan isku dhufanayna. tirada dhibicda waxaan tirinaynaa nambar walba dhibicdu meesha ay taal intee nambar baa midig ka xigta waa tirinaynaa. tiri dhibicda decimalka inta nambar ee ka xigta midig labadaba. haddii hal nambar halka ka xigo hal baan leenahay, kan kalena waa fiirinaynaa. haddii asna sidoo kale dhibicda midig ay ka xigta labo waxaan tirinaynaa labo. marka waa hal iyo labo. kan kore hal baan dhahaynaa, kala ka hoosean ku dhufanaynana labo. isu gee marka halkii iyo labadii. waa tusaalaha waxaan kuugu muujinayaa akhriska aan samaynaya. isu gee tirada kaaga soo baxday inta lambar ee ka xigta midigta dhibicda. tusaalena waa ku samaynaynaa. marka haddii aan anigu haysto hadda 2.3 aan ku dhufanayo eber dhibic 4.5 kanoo kale markaan samaynayo waa inaa eber ku daraa sidii tiihoo kale. marka kana 2 nambar baa dhibicda midigta ka xigta, kana 2 ka xigta. dhibicdi waan tiriya 4 taas isku noqonaya. markaan labadaa nambar isku dhufto hadhow baan waxaan dhibicda gelinayaa anoo midig ka soo tirinaya baan waxaan gelinayaa booska afraad. booska afraad ayaan waxaan geenayaa dhibicda. booska afraad ayaan dhibicda gelinayaa. tirada kuu soo baxday tirinta lambarkeeda midig ka xiga dhibicda waa meesha ay dhici doonto dhibicdu jawaabta marka la isku dhufo laba nambar. markaan labadaa nambar isku dhufto wixii soo baxaba midig waxaan ka soo tirinayaa dhanka midig anoo u tirinaya dhanka bidix sidan tusaalaha soo socda ku arki doono. markaasna waxaan samaynaynaa inaan dhibicda halkaa gelino. halkan waxaan galaynaa cashirkeenna tusaalaha koowaad. okay, tusaaleheenna koowaad waa examblekeenna koowaad. waxaana la siiyey inaan isku dhufano 6.32 lagu dhuftay 3.2. waa tusaaleheenna koowaad.
horta hore waxay u qoran tahay si tax ah markaan isku dhufanayna marka waa inaan ishoos dhignaa nambaraduna inaan isleekeysano waa okay, عفوا waxaan dhahaynaa markaan isku dhufanayna marka 6.32 waxaan ku dhufanaynaa dhibicdaan ku hagaajinayna waa rulkeennii markaan soo baranayna isku dhufashada iyo kala goynta tan hadda waa isku dhufasho 3.2 hoostan ka xariiqayna oo isku dhufanayna horta waxaan ognahay inaysa isla ekeen nambar ahaan waa buuxinaynaa kii marka wax ka dhiman yihiin waa in eber ku darnaa hadda marka waan fariisinay oo waxaan samaynay cafan uma baahnin inaanu buuxino waxaan leenahay marka isku dhufashada marka isku daradiyo kale ma aha cafan waxaan leenahay dhibicda meeqa number baa midigta ka xigta kan kore 2 places waa dhibicda 2 number baa midigta ka xigta waa kan iyo kan labadaas xagga dhibicda midig ka xigta 2 number marka 2 meelood baan leenahay hoosna maxaa weeye waa hal meel waa hal place waa isku darayna 3 meelood baa 3 place baan jawaabtu 3 place bay galaysaa dhibicdu booska marka midigta waa ka soo tirinaynaa hadhow midigtaan ka soo tirinaynaa bidixdaan u tirinaynaa halkaasaan dhibicda dhigaynaa hadda waan isku dhufanaynaa marka laboodana waxaan ku dhufanaynaa 2 waa 4 2 ku dhufo 3 waa 6 2 ku dhufo 6 waa 12 way labada waa dhamayna 3daan bilaabaynaa 3 2 ku dhufo 6 waa inaan marka waxaan isku dhufanay waa 10 ones iyo hundredths wuxuu aadayaa booska marka hundredths booskii caadiga tiradii anagu aan caadiga isugu dhufan jirnay ayaan isugu dhufanaynaa marka 3 waxay ku aadaysaa halkan always ever baa la iska gelin jiray taasaana ka sahlan inaan qofku xisaabta ka qaadano 6 way 3 ku dhufo waa 9 3 ku dhufo 6 waa 8 waa isku daraya dhibicda hadda kama walwalaya sida isku dhufashada caadiga ahayd baan hadda wax u sameynaya waa isku daraya labadana waa 4 waa 12 xabad waan wataa 2 iyo 9 ku daro waa 12 laba kala dhigo xabad baan wataa 1 iyo 8 xabad ku daro waa 10 ever dhig 2 xabad halka ku dar 3 meelood baa la yiri 3 places baan halkaan haystaa waa soo tirinaya marka halkaan ka soo tirinaya dhibicda halkaas ka soo dhaqaaqaysa waa 1 waa 2 waa 3 halkaas ay fariisanaysaa dhibicda halkaas aan gelinaya sidaa weeye marka dhibicda markii hore diyaarsaday oo number walba inta booska ay fadhido oo inta number midigta ka xigta aan tiriyay oo aan ogaaday nambaradayda waxaan isugu dhufanayaa si caadi ah sida caadiga la isugu dhufto nambaradan isugu dhufanaya waxay iga dhigan tahay anoo 6 3 2 ku dhuftay 3 2 dhibicda waabaan mar haddaan boosaskeedii haysto waxba kama soo qaadaya marka ayada halkaasaan iska dhigaya sida caadiga nambarada la isugu dhuftaan isugu dhufanaya
jawaabta ii soo baxda meeshii aan dhigi lahaa ayaan markaas gelinayaa dhibicda. kaasi waa tusaaleheenna koowaad. tusaaleheenna labaad. tusaaleheenna labaad waxaana la siiyey eber 4 5. waxaan ku dhufanaynaa 3 dhibic 3 1. way waxaan samaynaynaa marka hore waa isku aadkeedii baan samaynaynaa. waa eber 4 5 eber 4 5. waxaan ku dhufanaynaa eber waxaan ku dhufanaynaa 3 1. waxaan tirsanaynaa marka isku dhufashada booskalaan geysanaynaa. kani waa 2 meelood buu ku jira, 2 places ayay haysataa numberka koowaad. kan kalena 2 haystaa, 2 places. waa kan iyo kan, kanna waa kan iyo kan. 2daa meelood ayay haystaan 2 number. 4taa markaan isku daro 4 meelood bay noqonaysaa tirada guud. hadda waa isku dhufanaya marka nambaradayda waxaan isugu dhufanayaa sidii caadiga ahayd anoo 2 isku dhufanaya 45 iyo 3 dhibac oo kale iiga dhiganta. ma kala jecel kee nambaro badan kaasaan kor marnay 3 1. waxaan ku dhufanayaa waa eberkan hore dhibacda ka hore macno uu leeyahay ban jirinba, wax laga xisaabta ku fadhiya ma jiro. waxaan leeyahay 4 dhibic. waa isku dhufanayaa markaad. waxaan leeyahay 5 ku dhufa 1 waa 5, 5 ku dhufa 3 waa 15, 5 dhiga halka dhigo, 5 ku dhufa 3 waa 15, xabad waa 16. waa dhameeyey. 4 hal ku dhufo waa 4, halkaasi ku aadsa kaas always ever baan gelinayaa. 4 ku dhufo 3 waa 12, 2daan dhiganaya xabad baan wataa. 4 ku dhufo 3 waa 12, xabadii waa 13. waa isku darayaa. waa 5 waa 9 waa 8 waa 4 waa 1. ogow dhibacdeeda xaggeenayda markii 4 waan soo tirsanayaa waa 1 waa 2 waa 3 waa 4. halkaasay dhacaysaa dhibacdeeda. tiradeeda marka waxay noqonaysaa 4 1 dhibic 4 8 9 5. jawaabteeda tii horena maxay ahayd 20 dhibic 2 2 4. mararka qaarkood waxaan arki doonaa ayadoo markii aad isku dhufato sida hadda aragtida halkan ku qoran, meeshaas aan jag siinaya aragtida ku qoran. waxaana la yiri 0 is placed before the decimal point if there is not a whole number. waa sida hadda numberkan aan ka shaqeynay laba. 0dan laga hormarinayo haddii uusan jirin whole number waa laga hormarin karaa oo macno laakiin ma leh. before the decimal point are not necessary when multiplication problems are written in vertical. waan ka tagnay hadda 0dan naga horreysay ayuu intaas sheegaysaa markaan isku dhufanaynay oo jawaabta hadda ka shaqeynayna dhankan markaan hadda ka shaqeynaynay 0dii waa ka tagnay. 0daasi macno ay leedahay ma jiro. 0da dhexda ku jirta ayaa macno leh markaan isku dhufanayno. okay exercisekan iyo kii horeba
waxaan ka shaqaynaynaa tusaalihii baa nooga filan waxaan u gudbaynaa kuwan waxaan ka samaynaynaa waa exercise maxaa lagu yiri rewrite this multiplication problems in vertical form si kal ah u qor markaad u qorto isku multiply to find the product isku dhufo si aad u heshid jawaabta count the decimal places in each problem before you place the decimal point tirso booska dhibicdu fadhido inta number ee midigta ka xigta si aad hadhow u meelayso dhibicda booska saxda ah ee ay jawaabta ka gelayso okay waxaan ka samaynaynaa hal tusaalaan ka qaadanaynaa مثلا tusaalaha su-aasha 13 oo kale waxaa la isiiyey 2 3 4 5 waxaan ku dhufanayaa verticalkii baan u qorayaa isla markiiba 1.8 waa boos tirsanaya markana waa 2 meelood kana waa 1 meel 3 meel baa haysta saddexdaas waa waxaan sii qoranay bas macno kale oo aan u isticmaalayo ma jiro waxaan u isticmaalayaa oo kaliya in aan ku muujiyo meesha aan dhigi doono waayo numberkan waa isku dhufanaya marka 8 4 ku dhufo waa 40 4 baa wata 8 ku dhufo 4 waa 32 iyo 4 taa wadatay 30 iyo 6 dhiganaya 3 qaadanaya 3 ku dhufo waxaa weeye 4 ilaatay iyo 3 wadatay waa 7 iyo 20 labaa wadata 8 2 ku dhufo waa 16 iyo 2 wadatay 18 halka waxaa iiga dhan numberkaygii 8 ah ku dhufashadii numberada sare oo dhan kan hoose waa 1 halka eber baa markasta gashanaya okay 1 ku dhufo 5 waa 5 1 ku dhufo 4 waa 4 1 ku dhufo 3 waa 3 1 ku dhufo 2 waa 2 waa isku daraya waa eber 6 5 ku dar waa 11 halka dhigo 7 ku dar 4 waa 11 again halkii kale ku darso waa 12 hal baan wataa waa 11 kale markaan labadan isku daray xabadii waa 2 hal baan wataa 4 waaye jawaabteeda xageegaysaa booska saddexaad bay dhacaysaa halkaas dhacaysaa marka saddex meelood baan haystaa okay waxaan samaynaynaa example-ka ku xiga exercise d macadka lambaradaasaad isku dhufanaysaa waxaana tirsanaysaa inta meel hadduu boos ii soo haro because example-kaanaan rabaa inaan sameeyo si ana jawaabtaana hadhow sida eberka gadaal looga dareeyaysa iga buuxsaman marka example-kaas ayaan hadda aadaya oo muxuu example-kuna leeyahay aan si fiican u fiirin example-ku wuxuuna leeyahay eber dhibic 23 waxaan ku dhufanayaa eber dhibic eber 4 horta hore waa inaan vertical u qoraa muxuu noqonayaa sida hore u sheegnaba eberka dhibicda ka horeeya muhiim ah waxaan leeyahay marka dhibic 23 waxaa kaloo leeyahay dhibic eber 4 waan isku dhufanayaa kow intaan isku dhufan waxaan tirsanayaa boosaskayga kan 2 meelood baan haystaa 2 meelood way ee kaga jirtaa dhibicda kanna waa 2
wadartuna waa 4 meelood oo jawaabtu booska ka dhici doonto. marka hadda waan isku dhufanayaa nambaradayda marka. waxaan samaynayaa marka 4 ku dhufa 3 waa 12 waa isku dhufasho caadi ah. hal baan wataa 4 2 ku dhufo waa 8 xabadii ku daro waa 9. halkan waxaa hayaa eber 3 ku dhufo halkan eber baan iska gelinayaa markasta. eber 3 ku dhufo waa eber. eber 2 ku dhufo waa eber. hoosta ka xariiq waa dhime isku dar. jawaabta ii soo baxda maxay noqonaysaa 2 9 eber. dhibicdayda waa tirsanaya. dhibicdayda maxaa laga rabaa waa 4 inaan geeyo booska 4. haddaan marka dhibicdayda halkaa ka soo tiriyo oon dhaho 1 2 3 waa ma dhammaystirna 4 meeloodaa leh maayo. maxaan samaynayaa marka eber baan ku darayaa kale. eber kale ayaan ku daraya markaasaan leeyahay halkaasay dhacaysa marka halkaasaan dhigaya. eberkan gadaal aan uga daray anaa keenay. sababta u keena waxay aniga waxaa laga rabaa dhibicdayda inaan geliyo booska 4 inay fariisato. booska 4 dhibicdu inay fariisato. nambaradayda markaan isku darayna 3 nambar ba ii noqdeen. booska iga dhama maxaan ku samaynayaa eber baan ku buuxinaya. jawaabteed marka waxaa noqonaysaa eberka aan ka hormarinaya kaas hore waataan sheegay macno uu leeyaha male kama mid ahan tirada. waxaan leeyahay marka waa eber waa eber waa 9 waa 2. saan u akhrinayaa marka waxaan leeyahay waa 92 10,000 waa markaan akhrinayo. tusaalahana labaadna fiirino. waa tusaale laba practice buu na siiyey. kan kalena muxuu yahay marka kan kalena waa eber dhibic eber 2 5. waxaan ku dhufanaynaa eber dhibic eber 35. waaya waa isku hoos qoraynaa marka hore oo waan ka tegaynaa eberada hore oo waxaan leenaha waa eber dhibic 25. waxaan ku dhufanaynaa dhibic eber 35. kana waa 3 places. kana waa 3. isku darkoodana waa 6. wasku dhufanaynaa markaad 5 ku dhufo waa 5. labaan wataa 5 2 ku dhufo waa 10 labadii ku dar waa 12 labadii qora hal ku dhufo 5 eber ku dhufo waa eber xabaddaa wadata or 5 waa dhammaan 3dan bilaabaynaa halkan always eber baan gelinaynaa 3 5 ku dhufo waa 15. hal baan wataa 3 waxaa ku dhufataa 2 waa 6 ee xabaddii awadatay waa 7. 3 eber ku dhufo waa eber waa dhammayna 3 eber baa noo soo haray. eberka haddana ku dhufanaynaa halkan eber baan gelinaynaa halkan eber baan gelinaynaa. labada eber ma xisaabsana. eber ku dhufo 5 waa eber eber 2 ku dhufo waa eber eber ku dhufo eber waa eber kullu waa isku darayna marka. jawaabta noo soo baxaysa waa 5 waa 7 waa 8 waa eber waa eber. waxaana laga rabaa dhibicdeenna inaan gelino booska 6 markaan midigta ka soo tirino. waa 1 waa 2 waa 3 waa 4 waa 5 ma dhama waa inaan ku darna eber kale
واللح بوسك الحساسة وفريست مركا محن قلنا جوابتين وإبر كهرون معنى لهين أوكي و إبر وريا سرير تضبط شم جوابتين وركا سوري عدكاس muhiimadda marka qaybtan hadda aan ku baranayno oo aan ku samaynaynaa waxay tahay haddii aan nambarada isku dhufanno oo aan haysanno bilowgeenniiba meesha dhibicdu dhici doonto oo jawaabta noo soo baxdaa ay naaqus tahay meesha dhibicdaasi waxaa muhiima inaan eber ku darsanno mararka qaarkood hal eber baad ku darsan mararka qaarkoodna hal iyo laba wax ka badan baad ku darsan kartaa ebra ilaa dhibicda booskeedii intii lagu yiri geli booskeed aad gaadho eberka waad ku darsan kartaa okay halkan waxaa ku yaala exercise-kan jawaabtu waa lagu siiyey jawaabtu waa lagu siiyey waxaa lagaa rabaa dhibicda booskay dhacaysa inaad gelisa bas numberka ugu sahlan hadda aan samaynaynaa numberkaan samaynaya waa number 4 oo kale maalan waxaa laga yaabaa inaad number 4 number 4 waxaan haystaa fiiriya waa hal dhibic eber 3 5 waxaa lagu dhuftay dhibic eber 2 waa la isiiyey jawaabta soo bixi doonta waa la isiiyey jawaabta waxaa la yidhi waa 2 waa eber waa 7 waa eber dhibicdu xaggee dhacaysaa marka haddaan marka tiriyo waa inaan tiriyaa kan meeqa kan waa 3 places kana waa 3 okay halkan 4 baa taal maxaan samaynaa marka waa inaan eber ku daraa si aan booska lixaad u geeyo waxaan ku darayaa eber iyo eber kaas hadda 4 number baa haystaa markaasaan dhibicda booskaa dhigaya eber kaloo aan macno lahayn oo sii daban exercise ida saasaa looga shaqeeya exercise ida waa sidoo kale waa wixii aan soo marnay oo kale waxaan try garaynaynaa exercise h-ka word problemka multiplication waxaa la rabaa inaynu horta hore hadda fikirkeenna fiirino masalooyinka marka aan ka shaqaynayno mid inaan xasuusanaa la rabaa hadda wixii ka dambeeyana buugga waxay la kulmi doontaan masalooyinku in aysan hal operation ku shaqayn doonan operationna waxaan ka wadaa waa isu geynta kala goynta isku dhufashada isu qaybinta hadda waxaa laga yaabaa su'aalihii hore in tusaalayaal ay ku jireen qof wax iibsanaya sida bejka hore 102 qofkaasi markuu inuu dhowr shay gatay dhowrkii shay markuu gatay
dhowrkii shay markuu gatay inuu lacagtii bixiyo sida su-aasha afraad oo kale ee beejka ku qoran casharkii hore intuu gatay waa inuu isu geeyaa lacagta marka uu baxshay hadday ka badan tahay intii uu gataa laga gooniyaa baaqiguna loo celinaa waa sida caadiga ah macquulka waxaan rabnaa marka inaynu fahanno meeqa operation baa la isticmaalaya operationna waxaan idhi waa calaamadaha isu geynta kala goynta isku dhufashada iyo isu qaybinta marka hore wuxuu atamyadu gatay iyo ashyaadu gatay waa inuu isu geeyo oo isu goyn baa dhacaysa marka kuwaad markii la ogaado intaas intay tahay baa wuxuu lacagtu qofku baxshay baa laga goonaya waxaanu loo baahan yahay marka fahamka in la fahmo masaladu ma waxay u baahan tahay isku dhufasho ma waxay u baahan tahay isu qaybin ma waxay u baahan tahay isu ku darid ma waxay u baahan tahay kala goyn ayadan waxaa la rabaa macnihin in loo fiirsho hadda halkan waxaa ku taal su-aasha koowaad haddii aad hayso shay dherarkiisu yahay 6 shay oo yaryar ribbon oo mid walbana ay tahay 0.0112 long foot long masalanba ka soo qaad waa shaye yaryara waa masalada koowaad exercise age masalada koowaad shaygan ribbonka lagu leeyahay matalan ka soo qaad sawirayaan ka samayna waa shayna waa hal kaasaa marka wuxuu yahay 0.0112 mid kale baad ku dhereerinaysaa baad dhinac dhigaysaa kan koowaad waa intaas kii labaad raaci kii saddexaad raaci markaas waa 6 shay baa lagu yiri kulligood dherarkeeda meequu noqonaya marka masaladaas saasay u dhigan tahay waa su-aasha koowaad ee halkan anseer ka gelinaya dherarkeeda dhan meeqa waa marka dherarkeeda marka waxaan samaynayaa maadaama aan ogahay inay kulligood yihiin intaan isu geyn lahaa hal maadaama ay isku mid yihiin 6 baan ku dhufanaya oo waxaan leeyahay 0.0 maadaama aan 0da hore ka tagayo intaas soqonaya 6na waan ku dhufanaya kan waxaan haystaa 3 meelood mar kasta waa inaan arrintaa qora mar kasta haddayba dhufiskusan kan dhibic male dhibici horey kaga jirtaa horena kama xisaabayo waa 0 numberka caadiga ah haddaad decimal ka dhigayso dhibicdu waxa midigta ka xiga waxba kama xigaan 6da wax number oo ka xiga male waa isku dhufanaya marka 6 ku dhufo waxaan haystaa marka 3 meelood bas la haystaa marka waa 12 xabad baan wataa waa 7 6 markaan hal ku dhufto xabadda ku daro waa 7 eber 3 meelood geli baa la yidhi halkaasay gelaysaa marka waa 3 maadaama 3 haysto masalada marka faham ahaan baa looga dalnayaa faham ahaan inaynu u fahanno ayaa muhiim ah masalanka inta kalena casharadii su-aaluhu tusaalayaashii hadda aan sameeyey ayay dhammaantood ayay la mid yihiin mana adka marka halkaasaan casharka ku joojinaynaa caawa waxaan rajaynaynaa marka in lasoo wada sameeyo haddii ilaahay